maxkamadda sare waxay ku xukuntay dambiile imika saacada laga bilaabo dambiilu noqday waxay ku xukuntay dambiile gacan ku dhiigle Egaspol Khalid Abdirrahman Muhammad ina nimco Muhammad 26 jir ah kaas oo si bareer ah u dilay marxuum Shicib Saciid Umar Ismaan ina Ugaas Xasan 30 jir ah taariikhdu markay ahayd 28 una geeriyooday dhaawacii uu geystay 28 bishii 6aad 2025 waxa maxkamadda sare ku xukuntay dil toogasho maxkamadda sare marka ay aragtay qodobada 225 227 228 229 230 iyo qodobka 109 xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 434 qodobka xubintiisa koobaad oo lala akhriyo aayadda 54aad ee suuratul maa'ida iyo qodobka 109 xeerka ciqaabta guud maxkamadda sare markay si qoto dheer u daristay ugana baaraan degtay kuna soo saartay dhammaan marag muujinadii iyo cadaymihii ku jiray galdacwadeedka waxa ay soo saartay danta cadaaladda awgeed xukunkan hoos ku qoran magaca ummadda Soomaaliland magaca maxkamadda sare ciidamada xukunka maxkamadda sare waxay ayiday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad oo ahaa dil toogasho ah taas oo cuskatay aayadda 54aad ee suuratul maa'ida iyo qodobka 434 maxkamadda sare waxay ku xukuntay dambiile imika saacada laga bilaabo dambiilu noqday waxay ku xukuntay dambiile gacan ku dhiigle Egaspol Khalid Abdirrahman Muhammad ina nimco Muhammad 26 jir ah kaas oo si bareer ah u dilay marxuum Shicib Saciid Umar Ismaan ina Ugaas Xasan 30 jir ah taariikhdu markay ahayd 28 una geeriyooday dhaawacii uu geystay 28 bishii 6aad 2025 waxa maxkamadda sare ku xukuntay dil toogasho ah maxkamadda sare waxay xukunkeeda u cuskatay qodobka aayadda 54aad ee suuratul maa'ida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta guud